السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن داوديال كسو دوادا ماينس اوفيشال oo badana ka hadalno dhibka iyo problemka haysta dadkeena anag ahaanteena Soomaalideena siiba badana gabdhaheena oo maalmahan maxalada ku sii badanaya social media ama u isticmaalaya qaab xun dad badan ayaa waxay u sameeyaan videos inay ku helaan viewers ama like ama subscribe ama lacag ay ku sameeyaan inay jirkooda ay soo bandhigaan gabdhaha siiba ani waxaan eedeynayaa gabdhaha maanta waxa miiska noo saaran gabar loo Safana September gabar la dhaho oo adinku badan aad aragteen social media ka aragteen ilaa haddana aan ay qof runta u sheego yira war gabar yahay is astur marka koomidiyada badan akhrisanay gabadhu dadku leeyihiin hore u sii soco saasime so Safana September maxay horta gabar nooca waaye Safana September gabadhan waa horta ila daawada wax yar intaan barnaamij sii guda gelin. So nobody told me in condom la isticmaalo in marka naas uu ku soo baxana balay isku haystaysa iska dhigaysid oo nin kasta ku damcayo in some sick people ma taqaana ay hawlaha yar bis rabaan. I don't know why can they do madaxay fiiri meeshan qaabka u hadlayso Safana September waxay ku leedahay saan waaye barnaamijyo condom isticmaalo naasaasan la sameeyo waa gabar Soomaaliyeed first of all waxa waaye gabadhan gabar muslimada waaye Soomaali ka soo jeedo dhaqanka Soomaalidana badana hadda way ka tagtaba si marka u fiirino diiniyan markii la fiirshana way ka tagtay xishoodan malahan ayada macnaha dhibkeeda intaan la fiirin waxay raadinaysaa saas viewers ay ku raadinaysaa anaga ahaanteena waa daawaneena dad badan daawadayaal ku xiran oo barnaamijyadeeda ku xiran ayada waxa u sameynaysaa waxay tahay inay viewers ka sameeyso viewers ay ka sameynayso waxay rabtaa inay lacag ku sameeyso so marka already jirkeedii ka ganacsanaysaa so maxaa anaka nala gudboon marka dhalinyarada ahaan ama dadkii macnaha dadkeenan hadda runtii isku social media ama inaan taasoo gashid wax iska sameeyso maaha waa target ku sameyn kartid inaad dadka macnaha wixii qaldan u sheegtid wixii aad qaldan aad lagu sheego waa hadda maanta halka heerkaas ay maraysa hadda waxaan ka hadlayaa waxay tahay gabadhan oo u jeedaan barnaamijyadeeda dhanba waa qawnaansho iyo saan waaye iyo ariman oral sexual waxa la ka sheekeynaysaa afkeeda dhanba waxa ku jiro saana la sameeyna waxay ka aragtay maxaynaha ay barnaamijkan u sameeynaysan waxay tahay Soomaalidii ayaa waxa ku badan dad noocaasa dadka noocaasa maadaama ay ku soo badanayaan waxay isticmaalaysaa ayad inay dad badan ku soo jiidato viewers badan ay ku hesho ka bacdina ay lacag ku sameeyso so adi ahaantaada marka maxaa kula gudboon horta meeshan diiniyan ahaan gabadhan hadda qof waaninaya culimadii ka hadlayso ma jiraan dadkii culimada kama hadlayaan dadka hadlay wax ka hadlayna ma jiro ani maanis ahaan marka waxaan jeclaystay inaan wax yar aan ka taabto gabadhan arrimaheeda horta gabadhan waa sida u jeedaan waxa idin kaga sheegay mal hadda wixii dhan waa idin soo sheegay barnaamijyo ay badan ay keentan waxa ugu badan waa barnaamijyo oo nin inaag isku tagay saana la sameeyaa naasa la sameystaa waa la qawnaadaa inta ka dhacda gabdhaha maxaa isku dhibaysiin barnaamijkan waxa ka dambeeya horta barnaamij gaalo wax looga raadinayo waaye gaala ka dambeeyso waaye maxaa la ii sheegeen dadna ay ku raadinayaan ayadana laga yaabo in waxyaalo badan u isticmaalin karto waxa keeni karto in viewers ku raadinayso marlaad waxa keeni karto in barnaamij laga dambeeyo oo yahay maslaxad waxa keeni karto maxaa laha ii sheegeen gaajo ayada ku qasabta inay jirto inay barnaamijka noocan ay sameeyso jirkeeda ay qaawiso marka barnaamijyada noocan kaligeed ma aha dad badan jira gabdho badan jira oo saan sameeyaan oo maxaa la gabadhan qaarna ay ku daysadeen maadaama gabadhii la hadli waayay gabadh wax dhaxayna waysa gabadhii ayada famous ay noqonayso aan ay noqonayso nin walba uu si share gareenayo miilada ka share gareenay ayadana waa isku fikir ani marka waxaan gabadhan hadda daawatiin muuqaaladeeda waxyaalo badan hadda daawatiin oo arkaysiin waxba idin kaga sheegi maayo kulli ani gabadhan waxaan dhihi lahaa dadka hadda kulli family way leedahay inkastoo meel Europe ama macnaha Mareykan meel joogto inkastoo aan aqoonin Europe iyo America inay meesha joogtaan ma aqaano laakiin kulli ani YouTube hadda ku arkay maadaama YouTube ka waxaan jeclaystay inaan ka hadlo fikir ahaan dhalinyar ahaan Soomaali ahaan uga hadlo ani fikirka ahaan gabadhartu ay marka hore waxa waan waaninaya aan waxaan dhihi lahaa abay si kale wax u raadi hadaad viewers wax walba raadinaysa qaab kale u raadi nafta mar walba ay tagi kartaa dadka daawanaya waxa uu sheegayaa inay iska ilaaliyaan waxyaalahan amal oo indhahaadan uma roona dadka hadda singalnimada oo kale dadka dhalinyarada anaka amal oo iska daawanaysiin laakiin waxa ka faa'iideysa mal qalmadooda ka faa'iideysa waxyaalo badan ka faa'iideysa bal hadda gabadhan hadaad si daawataan حتى دقن إسلام حتى ما يستو وحيف فينا سنة أمسنا حتى وحاول ضدك إن أوير دين الإسلام كسارس قبل إلى ذا سان محاوس مينيسين سان محاوس مينيسين حتى دا سيدا وتعمل واحد إلى دا وأركضون تاني
qaldan maxaa qaldan kabradida madow waaye so may aragtiin horta may arkaysiin yes okay so midaan ku sheegaya abaayo midaan ku sheegaya abaay macaantoy nimankaanayta maaragtaa horta nin dhib ma lahan iyo naag waa laysku abuuray si iyo gusna waa laysku abuuray maxaa meesha aan ka yeeraa maqlaysaa dee gasaani u hadlaysaa gabar Soomaaliyeed waaye dadaa daawanayo almost markaan fiirshay viewerskeedo 600 iyo something sii maraysaa dadaas sii daawana dadaa marka waxaas jecel war aad haantaada xitaa hadii singalnimo ku geyso iyo waxyaalahaas ama inta daawaleed waxaa ku fiican gabar aad tahay nin guurso ama wiil aad tahay gabar guurso at least laakiin saan camal u dhaqmin hadda gabadhan waxay sameynaysaa u jeedaa dad ay fasaadinaysaa dad ay xitaa waqtigooda ka dhuminaysaa waxna kuma sheegayso dambi maahan wax kale kama faa'iideysid soo marka hadaladeeda xitaa fiiri hadalla xitaa ma ahan xishad oo horta xishad afaarid waa isdaayeen maybe xitaa family rajo kama lahan qoftan familygeeda xitaa way deersa umaleena saan jeclaha waay balan si daawano we all know that laakiin marka yar tahay in khibrad haysanin and ma aragtaa wax lagu sheegin I know hooyo Soomaaliyeed ma taqaana she will never sit with you and say naya wax lagu sheega sidan waaye nimankaanayto marka uu tigiso kana maqaado nimankaanayto way ku waalid nimankaanayto ku tasabanin I don't know dhaqanka miya wax kala miya wax qaldan ma aqaani laakiin muhiim waxa ah hooyo kasta gabadheeda inay la sheekaysato especially adduunyada la joogo maanta 2019 oo dhamaanaya 2020 hadda gabadhan waxay waaninaysaa hooyo Soomaaliyeed inay ku masiyo horta hooyo Soomaaliyeed inay waxa fiicnaa leeyahay sharafteeda ay taqaano gabar Soomaaliyeed ee sharafteeda taqaano hooyo Soomaaliyeed gabar waaninaya maxaa waaninaysa ayadiya waan u baahan ayada dhaqan celis u baahan ayadiya in gadaal loo celiyo u baahan oo maxaa la ishay dugsi looga soo bilaabo ayada ka tagtay xitaa maxaa la lahan xitaa familygeeda ma u maleynaa hooyadiisa inay taam aabeedsan inay raal uga yihiin ma u maleynaa haddana waxay ku leedahay waxba sii waaninaya iyo waaninaysa wax u sheegaysaa waa ka daawanayo laga yaabo inuu sii shargareenayo viewskan oo balki YouTube-keeda ama maxaa la ishay Facebook-keeda sii shargareenayo maxaa ka faa'iideysaa faa'iido kugu jirto balan daawano aniga qof waa ka weynay hada 16 jirta hada 17 jirta marka doonno waa sleegnahay kaaga darantana aniga hadda daawanahay xitaa sometimes dadku waa la yaabay ana hadda barnaamijka hor fadhiyaa yaabanaaba waxa saasay u egtahay gabadhan hadda already jirkiisa u soo bandhigayso aniga xitaa hadda in la hadlaayo ma buu dul qaadan karibo soo marka hadda gabadhan maxay dambiyo hadda already aniga 36 aan dhex taaganahay marka dadka kale daawanay ku taxan maxaa u maleynaysaa la xitaa qofka bilaadanka markii si loo fiirsho xitaa lama daawan karo indhaha madaa tira maanta ma daawanaya waxa aadi ahayso xitaa maskaxdooda ka qaaysa soo marka hadda gabadhan duwaanay dad qof dhan oo soo fadhiista meel waaye way soo qaawisay sometimes fiirsho wax arkaysa ayadoo qaawan oo nigis bis wadato soo maxaa dana ugu jiro ma isweydiisay maxaa ayada mid kale gabdhaha soo hadda ma arkin oo gabdhaha markay fasahaadsan yihiin oo kale waxay ku marsadaan aniga gabdhaha Soomaaliyeed xuquuqda u doonaya gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq u doonaysa maxay tahay xuquuqdaada yaa maqane adi ahaantaada maxaa naftaada ugu talagalay naftaada maxaa Ilaahay u hortagaysaa bari naftayda maqanaysana ahay warniyo waxaan dhihi lahaa dadkaan hala qabto dadkaan laga qabto mid kale dadkaan singalnimada ku reegto kale sida anaka camal oo kale gabadhan uma fiicnaba inaan daawano ma aha daawanina waa in ka waaninaya la daawanaa dhihi lahaa laakiin hadda waa ka weynahay sahar mida ku sheegaya labadanaas markay ku soo baxeen fiiriya dhigaysan karaa dawaayo markaas ay way isqoslaysaa waliba fasaxsan tahay wallahi horta aniga waxaan dhamaa inta ka badan biswaayr qoftan dambe waxa way marka hadlaayo inta ka hadlaan intaas ay kaato dadka kale waxaan ku waaninayaa inay gabadhan ay ka fogaadaan gabdho badan ay maxaa la marsan karto oo taageeri karaan gabdhaha marka hadda aragtid gabar u doodayso inay macnaha isqaawiso laba mid waay inay process ku raadinayso iyo inay maxaa lahaa dib u geystay soo marka aniga waxa idin sheegaa waxay tahay gabdhaha noocaan oo kale ama dadka noocaan oo kale waxa loo isticmaalayaa inay gabdhaha kale oo Soomaaliyeed oo sharafta leh oo maxaa laha xijaabkooda ku dhagan ay fasahaadiyaan soo marka waxa idin ka codsanayaa waxay tahay gabdhaheena Soomaaliyeed sharafta leh oo idin ku faano ogtiin ragga Soomaaliyeed meesha ka joogtaan inaad ku daysanin noocaan oo kale ha ku daysan bilis sharaftaadana dhulka ha dhigin jirkaadana ha qaawinin because jirkaada hadaa qaawisid naftan mar dhacaysa ma ogid hadii naftaada mar dhacaysa ogana oo jirkaada qaawna ku dhimatidna aakhir waxa la tagays mid aakhir ma dhaysa anina cadaan ma ku baadina cadaan isla hortagaysan qoftan cadaan laga yaabo inay wajiga raadsanayso waxaan
sharafna ma aha waa aragta dhammaan Soomaalida ku soo badanaya nin walbaba qaab walbaba viewers loo raadinayo waxa lagu raadinayaa soo marka waxa idinka waanaa waxay tahay ina maxaa la sheegeen iska ilaalisaan oo kala gabadhan la baxday Safana September hatta magaci way bedelatay magac islaamba ma walahaba Safana September ilaa hadda waxa la dhaho September waa xitaa sometimes marka fiirso bilaha bil kamida saan jeclahay haddana saasoo taa bilaha bil kamida waa bilaha xitaa oo san asnaab la caabudi jiray ahayn si hadda marka fiirisid xitaa historygooda gadaal u fiirisid soo marka kulli ani hadda gabadhan waxa ay maagan tahay waan hadii aan isku qiyaaso waxay noqon kartaa in dadkii mislead gareyso oo gabdhihii meel xun ka duudo oo saan waaye rag waaye saan kusoo gasho hadhowtiin waxa noqonaysaa in qofkii wuxuu yahay iskala qabsatid oo qofka marka maanka aragta iska daawatid oo hadda inkastoo anaka dhalinyarada aan daawanin dadka naacan amalan daawana maamulyuun iyo dadkan iska daawana soo marka barnaamij bilowdo waaye dhamaadna malahan laakiin wuxuu leeyahay hortagu leeyahay in naftaada adiga hortagtid naftaada ina ilaalisid waqti xun lagu jira soo marka hadda waa kana walaal ay leedahay nin ay leedahay haway ay leedahay aab ay leedahay way daawanayaan waa laga yaabaa way daawanayaan qasab waay then maxay sameynayaan waxa laga yaabaa hooyadaas ama aabaas in laga bilo YouTube kaas jirkeeda gabadhaas qaawinayso marka waxa kala talan lahaa gabadha hooyadeeda ay maqlayso inay qabato maxaa la dadka ka fadhiiso social media kaniso si asluubsan ay u samaasho waxaana nagu macsalaameynaa insha Allah inaad iska ilaalisaan dadka noocan oo kala gabdhaheena waxa ka waanaya inaad iska ilaalisaan dadka noocan oo kala mar walbaba in barnaamijkan waxa soo gabagabeynayna sida ognahay insha Allah waa inoo waqti kale waxa idin leenahay barnaamijkan maanta ka soo ku egyahay waa inoo kulanti dambe please waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saartaan sa ula socotid reaction badan oo kuwan ka xiiso badan waxaan kaloo ka codsanaynaa ina waanadeyda adinkana iwaanisan waxa ugu soo adinkana waanadiina hoos aan ugu reebtaan gabadhaana mar walba aragtaan meel walba ku aragtaan aad u sheegtaa runta fariintan aad gaarsiisaan wabillahi tawfiiq minus official nagala socotaan